xilli wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maalin walba soo warinayso kiisaska cudurka coronavirus oo soo laba kacliyay ayaa haddana waxa uu sii gudbay maamulada dalka ka jira ama gobolada Soomaaliyeed waxaana cudurka uu ku sii baahayaa meelo kale oo hor leh maamul goboleedka Hirshabelle dadka ku nool ayaa wax badan oo fikrad ah aan ka haysan cudurka coronavirus waxaana wasiirka maamulkaasi Hirshabelle u qaabilsan arrimaha caafimaadka Cabdi Macalin uu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay digtoonaadaan isla markaana ka taxadiraan cudurka isagoo dhanka kale baaq u jeediyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabelle oo ku aadan in shacabka Hirshabelle ay u baahan yihiin goobo caafimaad oo cudurkan lagu la tacaalo haddii kiisaskiisa ay soo bataan inay raacaan awaamirtii 7 ilaa macnaha 6 qodob ay ugu muhiimsanayd oo ay ahayd kala fogaanshaha inay dib u soo xasuustaan kala fogaanshihii wax uu tarahayaa inay dib u soo xasuustaan dhaqidii gacmaha oo la dhaqdo maskigi oo la qaato oo yani oo muhiim asaguna ah in la soo loo xasuusto meelaha bulshadu ay isugu imaanayso oo aroosyada iyo xafladaha in kala fogaanshaha macnaha la xasuusto wixii socod ah oo safara oo aan necessary ama yani muhiimad lahayna in la iska dhaafo oo dadku ay guriyahooda inay joogaan ilaa ay arrin muhiima ay u socdaan guriyahooda inay joogaan haddii alla idmo qofkii dareema testina inuu maaragtaa oo xanuun qofkii dareemana inuu la xiriiro si uu u helo wacyigelin